maantana waa la ogaan doonaa ceergaabo ninka degan iyo ninkaan deganin shakhsi gobol kale ka soo hanjaba anigu awood u arko waxaan awood iyo raganimo u arkaa ninka noogu yimaada degmada ceergaabo bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka hore ilaahay baa mahad iskale waxaan joognaa gobolka Sanaag qaas ahaan degmada ceergaabo haddii aad amniga wax iga weydiisay magaalada amnigeeda 2 sano loo soo hanjabay labadaas sano anagu dhageystayaal baanu ka ahayn maalin walba waxaan lahayn kana dhageyso maanta laakiin dhageysan mayno haddii la qaxi lahaa qaxi mayno haddii la guuri lahaa guuri mayno ceergaabo annagaa u dhalannay annagay deegaankayagii tahay annagaa ninna marti uga ahayn maantana waa la ogaan doonaa ceergaabo ninka degan iyo ninkaan deganin annagu waayo hadda ilaa iyo maalintii ciidanka gooja cadde ka soo baxeen hanjabaad baan dhageysanayna hanjabaadda mar waaxida kamaanaan jawaabin maalin waaxida kamaanaan jawaabin laakiin maanta laga bilaabo oo ay tahay bishii 12aad ay maanta kow tahay anagu horta cidna ku duuli mayno laakiin cid allaale ciddii isku soo dayda deegaamadayada ama khaas ahaan gobolka Sanaag inta aanu Soomaaliland ay ka jirto cid ku soo duusha ma ogolin idinku shacab baa tihiin ciidankii qarankana waa kaas hareeraheena jooga ciidanka qaranka waxa ka horeynaya shacabkayaga waa ka horeyn doona insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan ku dadaalaynaa inaan anigu horta shakhsi gobol kale ka soo hanjaba anigu awood u arko waxaan awood iyo raganimo u arkaa ninka noogu yimaada degmada ceergaabo ama si gobolka Sanaag noogu yimaada ayaan geesi u aqaana nin kastaan waa diyaar shacabku waa diyaar ciidanku waa diyaar shacabkana annaga ka horeyn doona cid kasta oo isku daydana gacan biraan uga jawaabi doona haddii ciidanku ay ka soo baxeen gooja cadde oo iska soo baxeen oo ragu haysto ceergaabo inay gooja cadde tahay wallaahi waa la isku baran doonaa bilaahi aad iyo aadna wadi salaamay